soo dhawaada barnaamijkan hala sheer garayo soo dhawaada soo dhawaada barnaamijkan hala sheer garayo dhalanteed ku dhalan maayo bismillahi raxmaan raxiim soo dhawaada barnaamij xasaasi ah baynu insha allahu ka hadli doonaa soo dhawaada barnaamij xasaasi ah baynu insha allahu ka hadli doonaa bismillahi raxmaan raxiim soo dhawaada asxaabta insha allahu barnaamijka waa bilaaban doonaa sidaa ciwaankaba ka aragtaan maanta garaanteenna waxay dul hoganaysaa ama aan ka hadli doonaa iyo sugaan xarig ini gashadeen sida aan ciwaankaba kusoo qoray garaanteenna maanta waxay dul hoganaysaa Puntland saddexda beriyo lasoo dhaafay waxa weeye baraha bulshada ama ma garanaysaa laga hadalhayay ama waxa weeye magaalooyinka Puntland ba laga hadalhayay ama ummadda Soomaaliyeed bay ka warhaysay khilaaf soo kala dhex galay culimada deegaanada Puntland ku dhaqan iyo maamulka waxa weeye Puntland insha Allah marka waxa weeye waxa weeye insha Allah barnaamijkaasina insha Allah waxa weeye ka hadli doonaa intiina ku jirta please waxaan ka codsanayaa inaad share gareysaan barnaamijka waxa weeye asxaabta kale gaarsiisaan share inoo dhaha gudagalaynaa insha Allah inta waxaan sugaynaa insha Allah asxaabta ay soo galayso waxaan ka codsanayaa idinkuna inaad share galeysaan insha Allah share ta lagu taabto share barnaamij xasaasi ah insha Allah live xasaasi ah bismillahi raxmaan raxiim waa galaynaa insha Allah barnaamijka dib ay ka daawan doonaan kulli waxa weeye akhyaarta kale sida aad la socoteen baraha bulshada iyaantan ama waxa weeye goobaha waxa weeye lagu kulmo waxa aad iyo aad loo halhayay go'aan waxa weeye ay ansixiyeen golaha wakiilada Puntland ama baarlamaanka Puntland la hordhigay kalfadhiga 48aad ee dhacay 15 bisha qodob xasaasi ah oo runtii waxa weeye ma garanaysaa aad iyo aad doodiis u badatay qodobkaas oo waxa weeye ma garanaysaa muddo soo jiitamay hase ahaatee waxa weeye ansixintiisu ay ahayd waxa weeye 15 bisha
qodobkaas wuxuu dhaliyay muran iyo dood iyo waxa weeye kala qaybsanaan iyo fadwooyin iyo waxa weeye adigu cirku isku shareeray sida la socoteenba waxaan rabaa marka galabta qodobkaas wixii gala gudboon maadaama aan ahay muwaadin waxa weeye xaqna leeyahay leeyahay wixii deegaanka ka cusub oo aan qofka ahay inaan waxa weeye wixii fikradayda ama waxa weeye de ma garanaysaa arintaas igala gudboon inaan ka hadlo sida la socoteen qodobkaas waxa weeye wuxuu noqday qodob bulshadu waxa weeye hadalhayntiisu waxa weeye aad iyo aad ma garanaysaa loo hadalhayay xiriyaha dawladda ama xafiisyada dawladana waxa weeye runtii isaguna doodiisu ay olayd wasiirka cadaaladda Puntland Cawil Sheekh Xaamud oo ah waxa weeye nin aqoon-yahan xagga diintana waxa weeye aad iyo aad ugu xeeldheeraa iyo doodaas waxay aad iyo aad waxa weeye ay ma garanaysaa ay u agtaalay wasiir iyo culimada Puntland marka waxaan rabaa inaan ka dhaho qodobna inaan waxa weeye wasiirka iyo waxa weeye maamulka iyo dawladda aan insha Allah waxa weeye aan ka dhaho qodobna inaan culimada ka dhaho qodobkayga saddexaadna aan waxa weeye kula hadlo dhalinyarada iyo aqoon-yahanka deegaanada Puntland ku dhaqan qodob dawladdan leeyahay horta dawladdu waxa weeye dhaliilana way leedahay oo waxa weeye de ma garanaysaa dhaliilna way leedahay amaanna way leedahay qofku haduusan waxa weeye ma garanaysaa dhaliisha iyo qofka amaanta uu leeyahayna uusan waxa weeye qirinna waxay noqonaysaa taasu ma garanaysaa wax ma garanaysaa cadaalad darra Soomaalidu waxay tiraahdaa ilaahu cadaalad darrana waxa weeye hanagu cadaabin eexna hanooga tagin dawladdu dhaliil bay leedahay oo waxa weeye de ma garanaysaa dhaliilo waa leedahay laakiin qodobkaas aniga sida ila muuqato baan rabaa insha Allah iyo waxa weeye waxa ay ku saxan tahay inaan insha Allah dawladda dhaho horta sidaad ogsoontiin waxa weeye ummad kastoo meel degani waxa ay leedahay maamulkaas baana uga dameysaa waxa weeye wixii hadba soo kordha ama waxa weeye lama maqlamiya war xarig baa igu jiray waa iska saaray hadaan la maqlay si fiican lama amir lama maqlamiya hiraan si fiican lama maqlaa waxa weeye dhaliilna way leedahay dawladdu waxa weeye amaanna way leedahay in labada la sheegana waxa weeye waa muhiim dawladdu waan dhaliilnaayo de waxa weeye dhaliil kalena ma aha waxa weeye wixii hadba markaas ka qaloocsama in loo sheego waxa weeye ma garanaysaa waa waajib cid kastoo xil haystana waxa weeye way khaldami kartaa way saxnaan kartaa maamulka Puntland madaxweynaha waxa weeye iyo xukuumaddiisa qodobkaas runtii anigu aad baan ugu taageersanahay waxaad la socotaan dhibaatada dumarka Soomaaliyeed gaar ahaan gudniinka lagu hayay baa la socotaan xaajada hadii aad waxa weeye qofku uu ma garanayso iska cadaalad falina waxa weeye waxay noqonaysaa wax cadaaladda ka fog qodobkaas dumarka Soomaaliyeed markii dhinac loo eego arrimaha xuquuqul insaanka marka la eego qodob runtii aad iyo aad waxa weeye u xasaasiya يعني ميل مرينتيسا ama waxa weeye laabidiisuna waxa weeye runtii dan weyn ay ugu jirto bulshada inuu ahaa baan runtii qiraya maamulkana waxa weeye qodobkaas uu waxa weeye ma garanaysa ku amaanan yahay waa dulmi waa taadi waa wax ma garanaysa aan wax ma garanaysa nacfiya oo waxa weeye maanta ku jira inaan dhahno ku doodno gudniin baa waxa weeye saxa iyo gudniin baa saxa aan sax ahayn waaba wax yani macnaha gaani macnaha totally ba waxa weeye wax khaldan way war waa taadi dumarka lagu hayay waxa weeye ma arag culimo ka hadlayso culimada tooda waan galeynaa arrimo bulsho waxa weeye ma garanaysa ama dhaqana bay arintan dabada ku haysay waligeed ba waxa weeye naas nuujinaysay runtii xukuumadda waxaan leenahay qodobkaas waa ku amaanantiin oo ugu horeeyo wasiirka cadaaladda hadalkaagina waa dhageysanay
waxa weeye daliilkii aad la timi iyo waxa weeye iftadii ama waxa weeye fatwadii aad la timina waan dhageysanay waan ku qanacnay horeyna waan ugu qanacsanayn qodobkaasuna qodob meesha ku jiray in laga saaro buu ahaa waad ku ammaanantihiin 100% waxa weeye dhaliisha ay dawladdu leedahayna in la sheegana waa muhiim dhaliisha waxa laga yaabaa in isdhahan waxa weeye odagu de ma garanaysaa isagoo dawladda waxa weeye wanaageeda sheegay lama arage tolo maxaa galabta waxa weeye ku soo siyaaday waa laga yaabaa in dadka qaybtiisa dhahan waxaan inii sheegayaa maamulkan ama waxa weeye xukuumaddu waxa weeye inagayna matasha wixii ay ku khaldan tahayna waxa weeye inaynu u sheegno wixii aynu ku saxan tahayna aynu ku amaano si waxa weeye ay horey ugu socoto waa lama quraan waa laga maarmaan marka qodobkaas waxaan leeyahay xukuumaddu sidaad waxa weeye ma garanaysaa oo ansixiseen waa ku mahadsantihiin waanaynu ku garab taaganahay waxa weeye waxaanu leenahay waxaas iyo wixii la mid ah oo bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan ummadda ku dhaqan Puntland dib ku haysa inaad waxa weeye saas oo kale u laabtaan waanaynu ku garab taaganahay waana waxa weeye inuu ku hambalyeynayna cid kasta oo waxa weeye maanta tiraada dhinac kale u rogtana waxaan leenahay haatu burhanakum la imaada xujadiina la imaada wasiirka cadaaladda Awil Sheekh Xaamud runtii waxa weeye waxaad jeedisay khudbad aan ku diirsanay daliilkeeda waxa weeye qodobkan ama waxa weeye hindisahan waxa weeye hindiso socday buu ahaa maamuladii hore waxa weeye mar walba baarlamaanka la horrigi jiray mar walba waa fashilmi jiray waxaana arintaas u aanaynayaa in waxa weeye ciddii waxa weeye arintan cid u aqoon leh inaysan mar walba wasaaradda cadaaladdu aysan joogin aqoon hawlahaata laakiin dhinac kale ma garanaysaa laga yaabana inay u xaglin jirtay laakiin wasiirka cadaaladda Puntland mudane Awil Sheekh Xaamud arintaas waxa weeye sida ay ahayd buu uga hadlay nin aqoonteed leh oo waxa weeye aqoon ku doodaya aftahnimo ku doodaya waxa weeye wadaad yare meelaha waxa weeye sabta ceyrsada oo waxa weeye ama qola ay soo bahalkaysana waxa weeye u babacdhigi kara de wasiirku hadaliyay ninkii isku cilmi isku haya buu ama waxa weeye haya dood haya ama arinta dood ka qaba hayimaado waliba waxaan ogolahay buu yiri inaan anigu la doodo taas waxay ku cadaynaysaa aqoonta iyo waxa weeye ma garanaysaa xiniyaha wiilkaas sheegtay marka waxaanu leenahay ama waxa weeye wadaadada qodobkoodan aan ku soo dari doona ninka arintaas dood ka qaba ma aha in meelaha suuqyada la isku ceyrsado waxa weeye kana ah laga sheekayo ninka arintaas ama waxa weeye tacadigaas waxa weeye diyaar u ah inuu ka doodo ama dumarka in la dhibaateeyo waxa weeye gudniin iyo waxa weeye caadooyin ma garanaysaa dhaqan oo soo jiray oo waxa weeye aan diinta raad iyo sal ku lahayn oo sunnaha raad ku lahayn oo waxa weeye ijmaac culumaan raad ku lahayn ninka ku doodaya wasiirku diyaar wuxuu u yahay inuu la doodo isaga iyo waxa weeye xirtiisu hayskeena fagaara qodobkaas maamulka dawladdan waxa weeye ku bogaadinaya waxaan leeyahay dawlad meesha ma garanaysaa khaldanta waa la inii toosinaya sidaan hadaba waxa weeye inii toosin jirnay wixii aad ku ammaanantihiin oo waxa weeye aad samaysaana waad ku ammaanantihiin sidaas oo kale waa in ku garab taaganahay adkaysigeeda iyo waxa weeye ma garanaysaa sida loo ansixiyay in sidaas looga dhabayana waa rajaynayna qodobna waxaan leeyahay culimada Puntland waxa weeye arintan buunbuuninaysa kicinta shacabka waxa weeye rabta inay waxa weeye ku awrkacsato iyagana waxaan leeyahay culimo dunida hadda waxa weeye dunida hadda lama asaasin sanado badan waayo badan waqti badan baynu soo joognay qodobka tacadiga waxa weeye gabdhaha lagu hayay waxa weeye gudniinka horeyna umaynaan arag haddana ma aragno una malayn maayo in dib loo arki doono wadaad ka hadla war arintaas waa sharci darro waa xadgudub waa yacni dambi dunuubta ka mid ah waa tacaddi qof bini aadana lagu tacadiyayo wadaad horey uga hadlay maynaan arag marka wadaadka waxa weeye hadda arintan ka doodayo waxa weeye meelahaas ma garanaysaa ka dhawaaqaya waxaan leenahay sheekh dalka waxa ka socda dhibaatooyin badan
oo ay kamid tahay midda dhaqaaluhu kamid yahay oo kamid yahay waxa weeye sixir barar kamid yahay oo kamid yahay shilinka Soomaaliga oo waxa weeye baabay oo gabi ahaan la laabay oo kamid yahay masaakiinta iyo waxa weeye dadka wax ma haysatada ah oo baqti ku dhow sheekh arrimo badan oo waxa weeye ma garanaysaa aad iyo aad waxa weeye ma garanaysaa xilkaaga saarnaa baa jira oo waxa weeye deegaanada ka jira kuma aan arag culimo waxa weeye inimaana arag waxa weeye ninkoo arrimahaas u qareemaya idinkoo masaakiinta waxa weeye ma garanaysaa u qareemaya idinkoo waxa weeye de ma garanaysaa arrin bulshada ku ah dib ka hadlaya runtii maanan arag waxa runtii nasiib xumo ah oo waxa weeye wax nasiib xumo lagu tilmaamo ah wadaadka Soomaaliyeed ee qarniga nool inuu u sameeysan yahay maalintii waxa weeye gabari soo heesto maalintii wiil show qabsado maalintii waxa weeye hebel ba ma garanaysa show qabsanaya in wadaadka Soomaaliyeed maalinta la arko waxa kale oo wadaadka Soomaaliyeed la arkaa arrintaas oo kale hadda dhacday oo kale markii la yiraahdo war arrintan gudniinku waxa uu dhibaato ku yahay bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan dumarka war arrintaas waxa weeye diin ahaanna waxa weeye culimadu waa cadeysay inuusan diinta sal iyo raadba ku lahayn war aynu iska kasalno sheekha Soomaaliyeed ee waxa weeye nool qarnigan ama samankan nool horta maalintaas la arkaa waxa kale oo la arkaa maalintii yacni waxa weeye la dhaho reer baa wax dhaxlanaya sheekhu marka arrin yacni mas'uuliyadii ilaahay waxa weeye ku saaray diintii aad baratay ma waxa ay ku soo urudhay masaajidka iyo waxa weeye gabar hoosteed inaad ka sheekaysid iyo heblaaya bahalka qabsatay intaas ee culimada hadda ka been sheegamayno waxa weeye culimadu boos maqaam waxa weeye weyn bay ma garanaysaa xagga diinta ku leeyihiin marka waxa weeye cadaalad laga hadlayo waxa weeye marka cadaalad laga hadlayo laakiin wadaadka Soomaaliyeed maanta nool waxa xaqiiqa oo aan ka been sheegayn oo ilaahay ugu dhawaanayna waxa weeye aad baan ku salaamaya khatro waxa weeye horta wadaadka Soomaaliyeed intaas ay waxa weeye xigmadiisa ku soo ururday marka waxaan ku leeyahay sheekhu masaajidka cilmigaagu ha soo dhaafo ummadan waxa weeye islaamka xilba ka saaran kiisa dhibaataysa xilba ka saaran waxa weeye kiisa gaajaysa xilba ka saaran kiisa waxa weeye tacadiga iyo waxa weeye ma garanaysaa dhibto haysato xilba ka saaran العلماء ورثة الأنبياء waxa weeye xadiiski laakiin maanta uma adeegsan karno sheekha Soomaaliyeed iskuma darayo culimo wanaagsan oo waxa weeye ka hadasha bulshadooda matashaba runtii jirta laakiin wadaadka arrimahaas iyo waxa la mid ah markii ma garanaysaa ay soo baxdo waxa weeye la arkayo baan la hadlaya sheekhow waxa xilka saaran yahay deegaankaaga xilka saaran yahay xukuumad baa ka talisa deegaanka waxa weeye xukuumad baa deegaanka waxa weeye ka talisa laakiin mas'uuliyadda qayb baad ku leedahay inaad deegaanka ka warhaysid inaad waxa weeye ma garanaysaa hadba wixii deegaanka dhib ku ah de mas'uul baad u tahay sheekh baa u tahay birina waa lagu weydiinaya marka waxaan u sheegayaa sheekha waxa weeye ay gubayso waxa weeye gabdhaha yaan la gudin ay gubayso oo garawacaa u dhex jooga sheekh waxaan ku sheegayaa xagee jirta ma dool baad ku maqnayd dalka ma ka maqnayd ummadan waxa weeye baahan oo waxa weeye suuqyada taagan ee waxa weeye shilinkoodu shaqayn waayay ee sicir bararku uu ku dhacay ee gaajada ku dhacday ee waxa weeye beerka dhulka ku haya sheekh kaas iyo waxa weeye dadka la mid ah qareemid kaaga baahan waxa qareemid kaaga baahan hooyada waxa weeye suuqa ku iibinaysa yaanyada ee waxa weeye cashuurta laga qaadayo oo waxa weeye cashuur aysan awoodin dusha laga saaray ee ilmaha baahan ka timi ee saaka waxa weeye ilmaheeda ka soo jarmaaday ee caawa waxa weeye caruurteeda waxa ay kula noqoto oo ay dab u saarto aan hayn taas qareemidkaaga baahan qareemidkaaga ma baahna gabar heestay runta wadaadka Soomaaliyeed waxa weeye runta waa laga gabadaa wadaadka Soomaaliyeed runta Soomaalidu waa kala gabataa war culimadeenu waxa weeye touch bay noo yihiin madaxay noo saaran yihiin laakiin wadaadka waxa weeye aan xilkiisa ogeyn oo xilkiisa waxa weeye ma garanaysaa aan
يعني كهرده inaynu runta u sheegno inaynu waxa weeye dhahno shiikhow halkaas iyo halkaas waad ku gaftay ama waxa weeye waad ka hurdaa waa lagama maarmaan waana waxa weeye waxayna ka mid tahay toosinta wadaadka xukuumadan wuxuu sheegaynaa wadaadkuna waa ka mid yahay waxa weeye qof kasta oo khaldama oo booskiisa waxa weeye ka khaldama waajibna saaran weeye inaan u sheegno marka culimada waxaan leeyahay doodaysa oo hadda waxa weeye ummadda kicinayso oo leh waxa weeye diintiini baa lagu tuntay kun qodob oo waxa weeye ka muhiimsan oo waxa weeye idin ka muhiimsan baa jira garow waa joogtaan wadaad baa maanta hadlay oo wuxuu yiri xukuumaddu waxa weeye maartaad qaadada waxa weeye wadaad baa hadlay galabta wuxuu yiri xukuumadda arrimo waxa weeye ugu muhiimsan baa jiro inay marka ay arintaas ka hadlayso waxa ugu muhiimsan buu yiri inay isbitaal dhisto waa sax ma garanaysaa waa loo baahan yahay wadaad يعني حكومة كل حساب تما bulshada waxa weeye waxa ma garanaysaa dhiba oo waxa weeye haysta oo waxa weeye ma garanaysaa ama meesh wax ka dayacan waa sax laakiin kama ahayn ilaahay daacadiis run baan ku sheegaya kuma aan arag adoo ku boorinaya waxa weeye ummadda ama xukuumadda u sheegaya waxa ay ku khaldan tahay taas maanta waxa weeye waxaan u aragnaa oo ku kacsi waxa weeye aad ku kacaysanaysid ummadda aad waxa weeye rabtid inaad garab kaga heshid laakiin waxaan ku sheegaynaa wadaadka Soomaaliyeed gaar ahaan culimada Puntland joogta intooda wanaagsan oo waxa weeye ma garanaysaa waxa weeye wanaag iyo samafalka u taagan waa meesheeda way ku amaanan yihiin laakiin wadaadka la arko maalintii waxa weeye heblaayo ay heesto ama waxa weeye la dhaho waxa weeye gudniin iyo waxaas waa xaaraane aynu iska saarno wadaadka waxa weeye aynu iska waxa weeye gabi ahaan balaabno wadaadka maalinta la arko waxaan u sheegayaa waxyaalo badan oo ka dayacan baa jira oo ilaahay waxa weeye dushaada yeelay oo aad mas'uul ka tahay oo waxa weeye iyo naga baxnay qayla badneena waxa weeye ma garanaysaa xilka saaran yahay baa jira marka waxaan inii sheegayaa culimadana taas la gaarsiiyo nimaan dhaliil lahayna dhaliil u yeelamayno culimaduna waa inay garato doorka ay ku leedahay baahiyaha ka jira deegaanka waxa weeye waxa nasiib xumaa oo nasiib xumaa aad u weyn wadaadka caawa garow jooga waxaan filayaa kullee social media waa ku jirtaan waxa weeye in badan ba aragteen wadaadka caawa social media jooga ama sida aan ku arkayba garow caawa jooga gabadha biri rabtay inay heesto Minneapolis waa ogyahay sababtaasna waxaan inii sheegayaa yani wadaadadii waxa la daba dhigay misqaala darrat waxa yani waxa indhahooda laga awday in ma garanaysa dhibta dhinacyadiisa taala ee dariskiisa haysata ee deegaankiisa haysata ee maamulkiisa haysata waa laga indhasaabo laakiin maalintii waxa weeye wax yar oo dumar quseeya ay ma garanaysaa ama waxa weeye iyo lamida baa arkaysa wadaadka Soomaaliyeed waxaan leenahay masaajid ka soo bax xukuumadda waxa weeye masaajidkuna waa xil ku saaran xukuumaddana waxa weeye ma garanaysaa xil baa ka saaran wixii qalloocday inaad waxa weeye garab istaagtid inaad masaakiinta u qareentid inaad waxa weeye ma garanaysaa kala talisid waxa weeye dhibta wadanka ka jirta wadaadu taasaan ku leeyahay xilkaaga garo maalinta xilkaaga garatid ballan waxa weeye cid kasta inay ku garab istaagayso laakiin waa yaxyax iyo wax laga xishoodo maanta waxa weeye Puntland aan aragno meesha ay marayso dhaqaalaheedu meesha uu marayo shilinku halku marayo sixir bararka halka masaakiintu waxa weeye ay marayso inagoo u jeedna maanta inay isku qabsataan waxa weeye ama isku waxa weeye ka doodaan waxa weeye gudniinka wala joojinaya gudniinku waa wax yani culimadu ay ka hadashay ma garanaysaa maamulku ka hadlay dadka waxa weeye in ka aqoon badnaa ay ka hadleen waxa weeye bulshadana dhib ku ah waa la joojiyay waana ku taageersanahay maamulka iyo dawladda in qodobkaas la laabo waana ku taageersanahay halkaasna waxa weeye waxay la tahay ma garanaysaa waxa soo gaarsiiyay maamulka iyo waxa weeye dadkii kulay ma garanaysaa arinta u guntaday wayna ku maadsiin intaasaan wadaadada kaga baxaya qodob kalena waxaan leeyahay nimanka dhalinyarada ee waxa weeye aqoon-yahanada ee wax bartay ee ilaa doraad social media waxa weeye wax ku soo qorayo aan u jeeday war waxaan in leeyahay
qaybtood baan arkay yani hadalada laga yaqiiqsado inaan halkaan inta soo mariyo runtii aan ila habboonayn oo waxa weeye goortaas ma garanaysa u xaglinaya yani dumarka aan gudnayn guursan mayna iyo war aqoonyahanka aaway aqoonta baratay dhaqaalad baratay garawna caawa ku nooshaa in adeerkaaba waxa ku difaacda ama xildhibaankaaga ama wasiirkaaga wax ku difaacda qabyaalad ku difaacda garawna caawa adu shaqalaan baa tahay aabaha waa shaqalaan in adeerkaa waa shaqalaan madanba marka taa kugu jirta waxyaalaha yani misqaala daratiya lagu yiri waaba sunne ama waxa weeye in laga tagana waxa weeye dambi lagu helmayo inaad ka hadashid oo social media isqabsado oo waxa weeye aad ka doodaan anigu waxay ila tahay liidnimo ku ah yani wixii aad soo barateen waxa weeye aan ka turjumayn war xilkiina garta war caafimaad baad barateen war waxaad barateen dhaqaalaad barateen war engineering baad barateen dalka wax ku soo kordhiya leeni ka faa'iido social media yani waa ku rasantay dhiiqa lagu kala jirtaan yani culimadii iyo waxa weeye dawladda baa u kala dab qaadaysan waxa weeye u kala dab qaadaysan isku ciyaarsanaysan aniga waxa ila tahay qodobkaas waxa weeye inima yaalo dhaqaalaha barateen halayna ka arko wax kaga bedela dadkan waxa weeye poverty-ga oo waxa weeye faqriga oo waxa weeye dhaqaala burburka iyo waxa weeye dhaqaala burburka iyo sicir bararka iyo saboolnimadu ay waxa weeye soo wajahday dadkaas u qareema oo aqoontiina ka muuqato kan caafimaadka soo bartayo waxa weeye hooyada dhiban oo waxa weeye ma garanaysaa awoodila waxa ilmeeda isbitaalka ku geyso u qareen taasa kaaga baahan waxa weeye ma garanaysaa ka doodid iyo waxa weeye ka hadlid iyo waxqabad kaaga baahan hayna ka muuqato aqoontu runtii waa nasiib xumo waxa mar walba aynu ka eed sheeganaynaa shaqo la'aan maalin walba intaasoo boqol oo waxa weeye ardayda baa ka qalin jabisay jaamacadaha haddana ma aragno doorkoodii iyo waxa weeye inkastoo wadanka dee ma garanaysaa hadba ay waqti tahay oo waxa weeye xukuumadaha haysta ama waxa weeye qabyaaladu ma garanaysaa ay saameyn weyn ku leedahay haddana waxaan idin leeyahay war waxbaad bedeli kartaan waxbaad barateen 20 sano wax baranayseen hadday kaaga soo harto waxa weeye inaad fadhi ku diririyada garowe iyo waxa weeye deegaamada la mid ah aad ka hadashid oo waxa weeye ka dhawaaqdid anigu waxaan u arkaa inaad gaftay waxa weeye yani heerkii aad ku lahayd ama waxa weeye xilkii ku saarnaa inaad gaftay waxa weeye dhalinyaradan intaasaan kula talinayaa mar labaad iyo mar koowaad iyo mar saddexaadba waxaan leeyahay qodobkaasna xukuumaddu waxa weeye sida ay go'aanka uga gaartay ma garanaysaa ha uga dhamayso waxa ku garab taaganahay wixii waxaas iyo wixii la mid ah oo waxa weeye wadaad xumo oo waxa weeye dabada ka wadana xukuumaddu meel ha uga soo jeensato wadaadadana waxa weeye iyagana waxaan kula dardaarmayaa wadaadow xilkiini markii aad gabteen baad waxa ma garanaysaa ka dhalatay in ma garanaysaa aad cidba u tirsanaan weydaan waxa la yiri dad rag waxa ugu xun ama dad waxa binaadan waxa ugu xun ruuxa markuu tagana aan la tabin markuu joogana aan la tirsan kuwa aan noqonina idinkaana iska dhigo waxa weeye wadaadada de qaybna waa ku aamusan tahay de maamulka ama ha ka qaato de mushaar ha siiyo ama waxa weeye sidii kale ugu aamusnaadeen wadaadadan kulli hadda dhawaaqayana waa muasasooyinkii Sacuudigu oo waxa weeye fangareyn jiray iyo dawladaha waxa weeye Carabeed ay fangareyn jireen oo umada waxa weeye ma garanaysaa marin habaabiska u qaabilsanaa sida xaqiiqda marka waxaan leeyahay xilkiina markii aad gabteen baa keentay in waxa weeye wax walbaba aad ka noqotaan banaanka ka noqotaan wadaadow hal lagu arko xukuumadda saameyn ku yeelo xilka ilaahay ku saaray oo biri ku weydiin doono oo waxa weeye ma garanaysaa ahaa xadiisku ahaa qof walbaba mas'uul wuxuu ka yahay waxa la weydiin doonaa wuxuu mas'uul ka ahaa deegaanka aad mas'uul ka tahay masaajidka iyo tujintiisa iyo kitaab akhrinta waa sax qayb waa mas'uuliyad baa ka leedahay laakiin banaankana waxa weeye mas'uuliyadeeda waa ka saaranta العلماء ورثة الأنبياء مركز الله محل علماء محي كده حشي أنبيادي علماء مساجد لفرديو وحوي ضدك وحلو آخرين مية كده حشي وحوي حكومة يودادو مكلا مارمان حكومة وحي وحكوة دو علماء واقعي مركا علماء وحن لنا هاي دور كنا هلا أركو وأنا محسنتين إن شاء الله وحوي حولها سنة إن شاء الله وكهل دونا
marnaba kama gaban doono xaqa sidii waxa weeye ilaahay noo faray baan uga hadli doonaa dhalinyaradana insha Allah waxaan leeyahay meesha ka kaca waxa weeye cilmiga aad barateen halayni ka arko oo shaqalaanta aad leedihiin shaqalaan baa jirta shaqo abuurka inuu ku keena oo waxa weeye dhismayaasha iyo horumarada inuu ku keena war waxa weeye kan caafimaadka bartay oo caafimaadkaaga ha loo aayo 20 sano waa nasiib xumo adoo 20 sano ama 30 sano wax lagu soo bareeyay maanta inaad qabyaalad kaga sheekaysid meheradaha oo waxa weeye aad waxba soo kordhin waa ku nasiib xumo waaridkana waa ku nasiib xumo wadankana waa u nasiib xumo annagana waa noo nasiib xumo waxa weeye meesha ka kaca aad iyo aad baan idin salaamaya. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.